claims of flight risk, for which I note that they have not responded to, so it is not controverted. I find those to be compelling reasons to allow the application. Accordingly, I do grant the 14 days as prayed. They shall be managed in custody at Wajir police station. So for the purposes of a sick person, the person who is unwell will be escorted to medical facility for treatment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waxaan joognaa maxkamadda Wajeer waxaan halkan u taaganahay nimankii lagu tuhunsanaa inay dileen gacal aadan in maxkamadda soo taagay laamaha amniga waxaan leenahay shaqo fiican ay qabateen baaritaan waa socda wala sameyn doona qaf adii la dilay kuwan dileen gacan digilku maxkamadda cadeyn doonto soo taas meeshan u baxaya maadaama dadkii ay maxkamad joogaan 4 barin la siiyay laamaha wax baaray inay soo baaraan midda kale waxaan leenahay wali waxaan ka hadlaa station-ka say wara waa station aan ognahay inta soo jeer in gabar lagu furxmay ama la halay todoba kees oo maxkamadda yeelo oo waraaqahoodi la bixiyay waranta barast ajir kees ajir nin dawladdu shaqeynaa nin u shaqeynaa xoolo u raac gabar furxmay istaalkan ku dhash wali aan la soo qabanin soo waa common case soo waxay u noqonaysaa hadii talaabo la qaado oo hortan dadkii baara qof u hore la soo qabto kan way laba bilood soo dhaafay gabar ay lama nin oo bikibigu taan xoogan damceen ilaa hadda lama hayn hadda kees waa keen maxkamadda nimanka lama soo bondal si ilaa maxkamadda lama soo saarin soo waxa leenahay waxay u noqonaysaa dadkii dambiga hagaajinay dambiliyalkii ay u noqonaysaa tusaale maal reewara wiil talaabo waxaan ognahay kees badan oo ilmo defilement oo la hagaajiyo wara kii maadin oo wiil talaabo qaadan maadaama famous hadda ay tahay cadaalad in la helo ayaan doonaynaa waa in la heli doonaa insha Allah taala hadday idinku gacantooda u geysteen waa la helaa hadday geysanin way ka banaan yihiin laakiin waxa caadi in uu noqoto wara in gabdha lagu furxmay talaabana la qaadin waa iska caada kees ku dambeeyay laba bil koor dhacay kees kala ay jirnin eri raaca oo chief erigu raaca oo warranty ODP ay bixin ilaa hadda la soo qaban gabartan ay staff u dhashay oo warranty la bixiyay soo tusaale ay noqonaysaa dad badan oo gacan ku dhigilayaal oo dambiilayaal ah oo meesha ida ka yimaadeen ayaa insha Allah taala ay tusaale u noqonaysaa gabdhaha la furxmeentoodan waa yaraynaysaa Rahmaanir Rahiim aniga magacaygu waxaan la Xasan Xuseen Shuuriye waxaan ahay nin reer Wajeer guddiga maxkamaddana waa ka tirsanay raggii lagu tuhunsanay gabadhii qaara lagu dilay maanta maxkamad waara lagu dilay ayagoo 3 nin ah ninkii qabay iyo 2 nin oo kale maxkamadda aan hor keenay maxkamadda run ahaantii anaga waa dhageysanayeen gudaha ku jirnay waxba nagama tahasaneen ninkii baaritaanka waday wuxuu codsaday in muddo 14 biri ah maxkamadda ay siiso keeskan baaritaan uu ku soo sameeyay wuxuu dhahay keesku wuxuu ka dhaxeeyaa Hadhaadho iyo Habasweyne iyo qaxootiga marka maxkamadda arrintii inaheed way ku qanacdeen ninka arrintuu soo jooday kees dil ahna kees sahlan ma aha dhinacuu jira Allah waclam anaga ma sheegi karna marka maxkamadda 14 biri way ogolaatay nimankan in la haaya keeskana baaritaan lagu soo sameeyay marka anaga shacab ahaan oo dhageysanay maxkamadda waa ku qanacna arrinta ayada runtii ayaa uu soo meel dhacaysa baaritaanka hadii sidii la rabay oo xaq uu imaado salaamu calaykum bismillaah maanta waa maxkamadan joognay markaan dadkii 14 biri dib loo dhigay maxkamadda sharafta lah waa maxsan tahay boqolkii wallahi waa lagu farxa hadda talaabadan hadda la qaaday sidii ku socoto marba in qalad ay galin xutun ay gabar la xoog marba la arkinay la taanay talaabada hadda isaan ku socdo faantahay walaalkii Cabdullaahi Mudaas mid station meeshan hal ugu dhameey kabtagan lagu dhameey hadda meesha odayaashii waxaan la sheegay hadhow banaanka subax kees oo dhuma gabarta xaqeeda oo dhuma gabdhii kala kulligood dhameeyay xaqooda waa la dhumaan hadda talaabada san loo ku socoto gabar kala xaqeeda ma dhumayaan reer Wajeer waxan waa soo noqdeen kuma hatta waa la arkay dad eriska xoogaas arkay waxan way soo noqonayaan waxa say u soo noqonaa waxa ay maslaxadan la sheegaa waa marka maslaxada iyada la sheegaa haday jirin waa si fiican u soconay arrinta marka inta sidan